muqdisho in maaragtay ay idinla joogaan fanaan Axmed Arsh وارم habeenka ciida nasiib u yeeshay fanaaniintii qarniga kuwii ugu cadcadaan waayo waa nishmanishaad iyo walaalkii وارم muqdisho joogta dhammaan bulshooyinka reer muqdisho waxaan ogeysiinaynaa showgii qarniga inuu dhacayo ciida وارم wuxuu noqon doonaa showgii ugu weynaa ee taariikhda rikooro hore loo dhigay ay jabi doonaan mid aan hore loo dhiginna way dhigi doonaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتك وحرم برتيدا يوتيوب ميل والبا oo adduunada ka joogtaan haday maal idin tahayna maalin wanaagsan haday habeen idin tahayna habeen wanaagsan inta kadib hadii aad afurtay ma sha Allah ilaahay caafimaad ha kaaga dhigo afurka hadii afurka wali wax kaaga dhiman yahay ilaahay nabad ha kugu gaarsiiyo waa tahay marka koowaad waxaan rabaa in aan u tacsiyeeyo qoyska ay ka dhalatay fanaanadii maantay magaalada muqdisho ku geeriyootay munaxidigta ilaahay ha u naxariisto qabrigeeda ilaahay ha u nuuriyo su'aasha allah u fududeeyo kitaabkeeda midigta allah ka siiyo samir iyo iimaanne allah ka siiyo hooyadeed aabaheed walaalaheed asxaabteeda iyo dhammaan inta fankeeda jecleed iyo inta maqalkeeda iyo muuqeeda taqaanay intii ay nooleed ilaahay ha u naxariisto gabadhaas fanaanada ah samir iyo iimaanne ilaahay ha naga siiyo maadaama ay ahayd gabar Soomaaliyeed oo fanaanada oo ummadda Soomaaliyeed ka baxday waa tahay sidoo kale waxaan rabaa maanta inaan idin la wadaago in showgii Ismaaciil Aarka uu baaqday kadib markii ay geeriyootay gabadha fanaanada ah ee maanta magaalada muqdisho ku geeriyootay munaxidigta sida aad ka warqabteenba waxay kamid ahayd fanaaniinta ka qayb qaadanaya showga Ismaaciil Aarka waxayna ku dhaganeed flyerka laakiin teedii ayaa maanta timid waa ayna geeriyootay dad ku dhow Ismaaciil Aarka ayaa waxay ii xaqiijiyeen in showgaas ay dib u dhiganayaan maadaama ay muna dhimatay waxayna ku dhalatay ama barnaamijkaas keenay in showga dib loo dhigo waa fanaanka Dayaxdal Nuurshe ayaa soo jeediyay maadaama muno ay ahayd gabar fanaanada oo ka qayb qaadanaysa showga in ayada maadaama ay geeriyootay showga dib loo dhigo ma sha Allah anigu ismaba lahayn Dayax baa intaas garta laakiin waxa waaye dad ku dhow ayaa ii sheegay Allahu a'lam laakiin waa inaan idin la wadaagaa macquul in ay maaragtay showga qabsan doonaan laakiin sida la ii xaqiijiyay ama dad ku dhow Ismaaciil Aarka iyo Dayaxdal Nuurshe ay aniga ii xaqiijiyeen waxay ii sheegeen in showga uu baaqday oo aan la qaban doonin habeenka ciida taasoo ka dhigan magaalada muqdisho habeenkaas hal show ayaa ka dhacaya waana showga fanaaniinta martida ah ee Najma Nashaad iyo Axmed Arsh iyo fanaaniinta kale ee reer muqdisho ee garbahooda ka heesi doono sidaan hore idinkugu sheegay haddana waa idinku soo celinayaa waxaa garbahooda ka heesi doona Xamdi Bilan oo ah boqorada magaalada muqdisho iyo Sakariya Kobciye oo ah boqorka magaalada muqdisho waxaa weheliya mucjisada raabka Sharma Boy sidoo kale waxaa la socda maslax mideeye ninka Jabuuti iyo Muqdisho isbaray ninka Jabuuti iyo Muqdisho dhalinyaradooda isjeclaysiiyay maslax mideeye waxaa kaloo la socda nin aan asna la dhayilsan karin oo kamid ah kuwa ugu sareeya waqti xaadirkan Khalid Kamil waa tahay showgaas ayaa dhici doona ilaahayna ha u naxariisto munaxidigta sidoo kale fanaaniin caan ah oo laga yaabo in aad taageerto markii aad aragto ayaa ka soo hadlay showga muqdisho ka dhici doona ayagoo aad iyo aad uga xun inay ka maqan yihiin habeenka fanaaniinta reer Hargeysa iyo Muqdisho shacabka reer Muqdisho ay raaxaysanayaan aad iyo aad bal aan ku bilaabo الفنان أن آد احترامه ويلك هرجيس الشتي عرضك
xidigaha geeska mursal. aad baan idin salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaan. waxaan idinla wadaagayaa midowgeysiinayaa shacabweynaha ku sugan magaalada Muqdisho in maaragtay ay idinla joogaan fanaan Axmed Aarshe iyo Najma Nashaad oo ciida halkaasi show idinku qaban doona Sahal Hotel. haddii aad Muqdisho ku sugan tahay ha moogaanin oo ha ka maqnaanin showga. aad baan idin soo salaamayaa, waa mahadsantiin dhammaan. Ha moogaanin oo ha ka maqnaanin Sahal Hotel. waa mursal. aad baan u taageeraa mursal. dabcan xitaa haddii aadan mursal taageerin waa qasab heese uu leeyahay jeceshahay laba wajiilnimada aan iska dhaafno mursal warkiisa maqla. okay, fanaan kale oo asne aan mursal ka dhicin oo legend ah magaciisa idiima sheegayo laakiin waa arkaysaa. بسم الله الرحمن الرحيم دمان أمة المسلمين تعمل كستي جوجان رمضان مبارك. waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa goobta reer Muqdisho meel kasta joogan. waxaan leeyahay Ramadaan Kariim. waxaa habeenka ciida nasiib u yeeshay fanaaniintii qarniga kuwii ugu cadcadaan waayo waa Najma Nashaad iyo walaalkii Axmed Aarshe oo habeenka ciida ay Muqdisho nasiib u yeelatay maasha Allah. habeen laga maqnaan karo maaha iyo dhammaan fanaaniinta reer Muqdisho oo loo kala hadhayn. waxaan leeyahay inaan moogaan habeenka maasha Allah. waa tahay kaasina waa xiriir dad kale oo caan ah oo baraha bulshada saameyn ku leh ayaa ka hadlay. waxaa ka mid ah reer Muqdisho handul kuure waxaan idin leeyahay showga handul kuure qarniga ee fanaaniin ninkan waa abwaan geesi laakiin waa cadda. abwaan geesi laftigiisa waa uu ka soo hadlay. waa caan dhan abwaan geesi. intii culuska ay isku arkayso oo handul kuure yahay martida noogu yihiin handul kuure Axmed Aarshe iyo Najma Nashaad yaa laga maqnaan. cimaamada intaas ugu tuudaan waa inaan la dhihin martiba handul kuure xumeyseen, martiba handul kuure sharfi weydeen iyo handul kuure waa la buusay. waxa yaa la maqlay fanku handul kuure qabiil maahan, qabyaalad malahan. waa handul kuure ma garanaysa maasha Allah. ma garanaysa meel walba oo fanaaniintu takaan oo tan lagu soo dhaweeyay ma garanaysa. anigu ceebeen in fanaaniinta tol hadaan ka dhashay cimaamada lagu tuuro handul kuure Axmed Aarshe iyo Najma Nashaad waynu loo kala kiciyaa oo saac cimaamada intii lagu rido habeenka show saac qaata tuurtuura labadii saac qaada ay dhahaan gob baan u nimi. Allah idin sharfo war waa mahadsantii ma joogna hatii ma tagayno waa inay dhahaan magaalada ku dhijisaan jeclaysiisaan. abwaan reer Muqdisho warkaaga waa maqlayaan. mursalow adna reer Muqdisho warkaaga waa maqlayaan. xariirow adna reer Muqdisho warkaaga waa maqlayaan. tigidyadii hadda waa dhammaadeen. tigidyo kalaa lasoo sameynayaa habeenkaas ma aqaano wallaahi. anigu markaan qiyaaso 11,000 22,000 adii ilaa 30,000 oo qofood way imaanaysaa. laakiin waxaa ii daran in maaragtay hoolka uu qaadi waayo. hase ahaatee waa arki doonaa siday noqoto. wuxuu noqon doonaa showgii ugu weynaa ee taariikhda. rikooro hore loo dhigay ayay jebi doonaan. mid aan hore loo dhiginna way dhigi doonaan. waa Axmed Aarshe iyo Najma Nashaad. waxaa wehliya Sakariye Kobciye, Xamdi Bilan, Sharma Boy, Maslax Mideeye. waxaa sidoo kale wehliya Khalid Kaamil. habeenkaas Axmed Aarshe iyo Najma Nashaad waa ay raaxaysanayaan, xamarna waa ay shidayaan. sidoo kale qabanqaabada iyo isku dubaridka iyo wax walba showgan waxaa qayb libaax la ka qaatay abwaankayga qaaliga ah, abwaanka weyn, abwaan Cabdiqani Gadhka. ninkaas meeshaanan kaa salaamaa guddoomiye. waa ninka magaalada Muqdisho fanaaniintaas si la yaqaano ugu soo dhaweeyay. inkastoo dad badan ay soo dhaweeyeen haddana Cabdiqani Gadhka qayb libaax loo ka qaatay showgaas. Cabdiqani Gadhka malaa'igtu ku soo salaanto. ninkan waa nin reer waqooyi ah laakiin annaga reer Muqdisho haddaan nahay Cabdiqani Gadhka iska dhahna marka ayagu isku lahjad ma nihin. Cabdiqani Gadhka guuleyso guddoomiye Landere. ciao. markale aan ku soo celinaa Ilaahay ha u naxariisto munaxidigta familkeedana samir iyo iimaan Allah ka siiyo. intii muuqeeda iyo maqalkeeda taqaanane
ilaahay samir iimaan ha ka siiyo waa gabar walaasheena allah u naxariisto waxaan bogaadinayaa fanaaniinta dhalinyarada ah ee garowsaday ee go'aansaday inay joojiyaan showgii ay ku qabalahayeen magaalada muqdisho kadib markii ay dhimatay fanaanad kamid ah fanaaniintii la qabalahay showga haddii ay dhab tahay oo dayaxdan uu saas ku taliyay waxay noqonaysaa si wanaagsan haddii aysan dhab ahayn ceeb ciao haddii aad nagu cusubtaa fadlan subscribe saara gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaal walba ee aan barteeda youtube ka soo geliyo haddii aad hore ila joogto saaxiib waa ku mahadsan tahay muuqaalka like garee si dad badan uu u gaaro dadkiina walaalahayga ah ee ugu xiran youtube-kayga meel fiican ay gaarsiiyeen adinkaa wax idinku ahay laandheerayaal guuleysta farxadeyda waa idinkoo faraxsan ciao